بديي راسن سما هذا إذا ما تضمن بدنا صاير أنا أكو قبطان ده ترب قرني تبركاك ما حد يسيدته با يتص ميك اب كي جاو لا إله إلا الله محمد رسول الله وميك اب بس أقول قيلسي ودنا يستاي قرن يجون ساتوجات كل موتي يا باسي إلى السلام عليكم بدنا يسي يروح مربكات بدي ما سوعني خوريكي جاتك قرية جاتك وأكو خمرت أنت مربكات بدي ستوب ميك اب كيجي أني أو أنا قام قلت خلاص بدني يروي إسلامتي السلام ولهلي ولاش ميك اب كيجي أو واو نقدر أبوه حبيبي قلت أنا أنت كل شيء قابل دوني بلا ميك اب كان بيجي والله هو بينا كل شيء دوني مركب بطل كاحل مرستي بس بضع كاتا إمي كان قرتي إذن كقاضي ميك اب كيجي يا يرسوغا وصوصر ودين ما عمرين حبيبي بلا ميك اب تكون قروح بانتاي حبيبي انا ما تروح ساعتين بغدبه هذا الكومه ديرانه صوصر واد garanaysa ku yaaleen حبيبي لا هاga ka cabso idaa jaadkaygan saga laabme shalay lixda ka joogtay وين برجيني sideedina وين برجيني sagaalkina وين برجيني حبيبي idageyso wanacay anigu intaan ku sheego ilaa imika laakiin imika kaaga kacay anigu wa ogtahay ma walaalka horta halkee kaga taalo ama qalbigiisa sidee ugu weetahay intuu cadaabo adanka ha idageysa hadaba xabiibi shalay tolo xasan sama markaa baxday walaalka uu soo wedaartay wuxuu muday cidna aqalka joogintii waxaan la kulmoon xariifkiyo maqsinkeena hurdada galaya markaa haawusun baan la kulmay isagiyo makeupkaagii hadda makeupkaagii la soo baxaya waxaan ku doodoonaba maatan gacanta kugu dhigay daayiraantii uma sanna ilaahay ba ilaahay yaa allah waad garanaysaa caddaanku xagga uu iga taagan yahay xagga uu igaga jirna waad garanaysaa ilaahu kii caddaada maanta naga dhig kan hadduuna caddayn waayo waan ka hadhaynaa يوض كنيف كل قلي حبيبي كنيفك إنتو ميارد إلى هو استاجي أيو اسكت نواقي الله نوغسو ديب الله نوغسو ديب الله نوغسو ديب الله نوغسو ديب محيو قطالا إني كون صور تاجنا في مرسين يعني محبو ميترين دي واضح عارك الله نعبي الله نعبي waxba naguma biirin be isagana waan dhageysanaya wuxuu leeyahay يعني فصح دي حبيبي جات كيغان سغير نقضي نوامح شوك برتا أكد دقاقي برتا كدقاقي واقص الشيء واسكا سعنس نحشوني سيد مركا كوباد هرتو waxa rajaynaya in xalqada maanta aad ka hesheen ood ku mabsuudeen ood ku jibooteen ood ku halkhasheen ood ku dawaqdeen ood ku mirqaanteen ay bas danaga aamus ayuu ilmuhu walana haddaba muhiimaddu inta qosolun lagu joojiyo maahe walaalayaal waa inaan isbaraarujino oon cilmi iswadaarsan waa sidaa darteed waxaynu musalsalkan ugu talagalnay in aynu ka difaacno hablaheena falalka foosha xun loo geysanayo maanta waxaan aragti guud saaraynaa caqabadihii iyo mashaakilkii soo waajahay gudniintii hablaha caqabadahaas oo u sii kala baxa 3 kow qofkii caadaadkan falayay oo ka haysta turjumad been ah diintii 2 cadaadiskii bulshada oo kule haddii gabadhan caadada la marin guur kuma habboona 3
caadadan xun oo dhaqankii soo dhex marayso oo lagu leeyahay waxaana amray dhaqankeeni haddaba walaalayaal aynu isku duubnaano oon ilaashano habliheen